xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo looguna mahad celinayay laguna soo gootinayay ra'iisul wasaare Roble ayaa xalay lagu qabtay caasimadda Koonfur Afrika ee Johannesburg. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal shacab ah ayadoona ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble uu xafladan kaga qayb galay qaabka fogaan aragga ee Zoom-ka. alxamdulillah tacab dheer shido maanta dawlad aan ku kalsoonahay oo aan rajaynayna inay meeshii qabyada ahayd oo uga tagtay hadday la soo gaarsiiso aan farxad ku qabno ayaan rajaynaynaa inay meel fiican gaarsiiso. maanta mar madaxweynaha arkay madaxweyne xasan waxaan ku dhahay meeshii qabyada uga tagtay lama joogay dib noo gaarsiin doontaa marka insha Allah loo soo duceeyo. bulshadii ka soo qayb gashay xafladda ee madasha ka hadashay ayaa si weyn ugu mahadnaqay ra'iisul wasaare Roble. salaan kadib waxaan u maleynayaa caawa waxaan gurinaynaa halgankii dheeraa ee aan u soo wada galnay in dalkeena ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ee aan ku dooranay dawlad ay Soomaaliya oo idil ku naalooto halgankii dheeraana uu ku nasto buuqii iyo dhibaatadii iyo mugdiga laga baqayna looga baxo dalkeena uu waxana qaada xasilooni siyaasadeed iyo jawi degan ee qof waliba Soomaali ama dalkii ha jooga ama dibadda ha jooge oo dareemo neecaw nabadeed ee qof waliba qalbigiisa ku dego maalkiisa uu ku dareemo inay meel nasiina ay gaartay nafsadiisana ay gaartay inuu ku heli karo meel ammaan ah taasna Rabbi subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan. waxaa kaloo aad iyo aad caawa mudan in looga mahadnaqo ra'iisul wasaaraha qaranka mudane Maxamed Xuseen Roble. alxamdulillah walaalkeena ra'iisul wasaaraha aad iyo aad ugu mahadcelinaa shaqada uu qabtay amaanada loo dhiibay meesheedu si ay tahay oo ku soo baxay ilaahayna ka abaalmariyo insha Allah. doorashadii Soomaaliya oo ceel ku dhacday oo la wada ogsoon yahay in sanad iyo in ka badan meel ay u socoto iyo afkeedii dabadeedii la waayay inuu wado u jiheeyay oo uu Soomaaliya ka riday doorasho muxaafad iyo mucaarad ba isla ogol yihiin intooda badan oo la wada qaatay natiijadoodii. taa waxaan u maleynayaa Maxamed Xuseen Roble wuxuu ku amaanan yahay in looga mahadnaqo walina raganimadiisa iyo kartidiisana lagu taageero. naftiisu u horay dalka Soomaaliya wuxuu yiri baarlamaankii ayagoo jooga wuxuu yiri nimayo hadduu madfac ku soo dhaco iska kaysikiya doorashaduna ha dhacdo. marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku gubaabinayaa ganacsatada dhaqanka dhalinyarada dadka wax bartay dadka wax haysto inaan u istaagno oo halkan caawa iga aqbashaan madaxda qaranka ee shaqeynaysa madaxweyne xasan sheekh u horeeya iyo prime ministerka wali booska sii joogana. mudane ra'iisul wasaare waxaan ku leenahay aad u mahadsan tahay aad u mahadsan tahay aad u mahadsan tahay inta doorasho qabatay oo aad tiri halayskaagu ahaa cadkaas rootiga damci maayo oo madaxnimada Soomaaliya ka soo qaaday cad rootiga adigana aad go'aan ku gaartay inaan damac ka gelin ummadiina wixii aad u qaban kartay u hagaaji kartay aad u hagaajiday maantana aad xagga ka istaagtay aad iyo aad u mahadsan tahay. si kastaba ha noqotay xafladan ayaa waxaa soo abaabulay shacab Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Koonfur Afrika taasi ay ugu talagaleen inay ugu mahadnaqaan isla markaana ku soo gootiyaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Cabdirashiid Xuseen Karash Dawa FM Koonfur Afrika Johannesburg.